maanta baasta la sameynaya oo guriga lagu sameysanaya insha Allah taala baasta caadi loo karinayo ma waa mid aad sameysanaysid oo burka ka sameynaysid bismillaah waa mar kale iyo channelkeeni Zamzam hay dhaafin kitchen hadaan ugu cusubtahay subscribe ka saar meel kasto ku sugan tahay soo dhawow bismillaah alladhi la yadur ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim soo dhawaad walaalayaal meel kasto dunida dacaladeeda kaga sugan tihiin maanta jikadeena ku soo dhawaada insha Allah taala maxaan sameysanaynaa baasto ukuntaan ka sameysanaynaa maxaan ka sameynaynaa bur iyo ukun kaliya labadaas nooc bis aan ka sameynaynaa mishiinkaan aan ku qasanaynaa waa wax yar oo iska simple iska fudud gurigaadana aa ku sameysan kartid ciyaalkana iyo reerkana waxyaabo oo fudud oo waxyaabo oo yani wixii la cuni jiray ka bedelan amal ay u arkayaan ما شاء الله تبارك الله سيدا إذنك waxa ku darsanaysiin idinka idin jirtaa laakiin idin ma dhahayo isla sida u sameeysto laakiin muhiimada waxa waaye burka baastada sida looga sameeyo iyo ukunta ina aragtaan in bur iyo ukun kaliya laga sameeyo oo aan caano lagu darin biyo lagu darin wax kaleeto aad ku dareenin saasa u sameeysanee insha Allah taala waxa doonto ku darsaa dhooti hadaad sida u sameeyo hadaad shape kaleeto nooc kaleeto ka dhig hadaarta mashiinki oo baashi daahaysatid oo baasta lagu sameeynayo balbalaar ka dhigi kartaa baasta balbalaar baasta dheer dhuubka ee fiinada ah hadaaratid macaroni ka dhigane hadda waxa waaye kind of macaroni amal waaye in qaybta aniga hadda ka dhigayo koos waxyaabo ayaan dhexda u gelinayaa saasaan u karinaa insha Allah taala cusbo kuma darin wax kale kuma darin koos biyaan ku karin rabaa sida baastada caadi biyaha marka ku karinaysid nooc cusba lagu darayaa biyi marka inay dhanaan isla sii noqdaan lama rabo cuntada gudaha uga jirto ayaa dhanaan iyo wax leh saasa marka cusba ugu darin waxba kale ugu darin ukunta kaligeed waaye iyo burkii saas isku qasmayaan marka isku qasmaana ma aragtay insha Allah taala la sameeynaya dhexdana loo gelinayaa alaabteeshinka hadda idin sheegayo ma aragtay ayaa dhexda loo gelinaa marka insha Allah taala ka faa'iideysto walaalaha hadii aad ka heshaan insha Allah taala asxaabtiina la wadaaga si ay ila socotaan more videos kaleeta oo aad channelka kala socotaana iyo cunto kariskaana waxa sameeysan subscribe ka saara si aad waxba aysan idin dhaafin gambaleelkana taabta ayahe waa noo qasmatay kana burki waa noo soo qasmay ma sha Allah isagoo smooth oo wax kale lagu darin ukun iyo bur leeyahay meeshan waxa noo yaalo kaleeto waxaa noo yaalo tuna fish oo kii biyaha ku dhex jiray ah oo biyihii inta ka soo daadiyay soo qalajiyay basal iyo kabsar caleen aan ku soo daray basasha cagaaran oo basal baarta iyo waxaan ku soo daray kabsar caleen marka gudaha u dhex galgalinayna in yar inta u soo jarano waa kana gudaha u soo dhex galgalinay waxa dhan gudaha uga jiraan biyaan ku karinayna marka baastada waa iska easy markana baastada caadi saartid amal ugu karine biyihii aan ku soo karinay sida baastada caadiga loo kariyo ayaan biyo ugu soo karinay marka alaabtii hadda aan idin sheegay dhex galiyay ma sha Allah if you want sauce waa ku cuni kartaa with or without sauce waa lagu cuni karaa hadaartii suuga ku cunay hadaartii ma ku cunaysid sideeday ku nuuraysaa testigeeda ma sha Allah waaye kaligeeda cuni kartaa maxaa yeelay alaaba gudaha uga jirto ayaan suugadana u kariyay yarta oo simple ka ah ma sha Allah sauce kana ku cunayaan aan ku cunaynaa haduu Ilaahay yiraahdo Ilaahay intii cuntana uu daaweeyo idinkana saas oo kale marka waa kana qaybtana ku darsanayna ku tusina sida ay gudaha ka noqoto hadii aadan suuga ku cunin caadigeeda oo cuni kartaa gudihiisa wax ugu jiraan ma sha Allah marka qayb kale iyadoo noocyo kale aan idin soo gelin doona baastadan oo design ka si noocyo kale aan u sameeyay laakiin maanta qaybtaana idin ugu talagal in asxaabteyda la wadaago ila fiiriyo idinkana soo tijaabiya noocyo kale ka dhigta idinka daartiin saan ka dhigta daartiin si kale ka dhigta baasha lagu sameeyo oo mashiinka baastada daahaysidna ma sha Allah dheer ka dhigan kartaa waxa ka dhigantaa barbalaar si kaleeto oo macaroni oo kaleeto nooc kale ka dhigan kartaa laakiin sida burka loo qaso ayay muhiimada ay sida burka loo qaso hadaa keentid ma sha Allah tabarakallah qof kasta waxa laga yaabaa inuu isweydiinayo maxaa lagu daraa baastada markii la sameynayo ma waxa laga sameeyaa biyo ma lagu daraa caano ma lagu daraa marka ukun iyo bur kaliya waaye only 2 ingredients ee noqonaysa egg iyo flour kaas oo caadi oo unbleached kuwa ah oo aan qamiirka lahayn waaye burka
daase intaas kaliya ka sameynay nothing else oo ka sameynaysid intaas kaliya ku sameynay suugaha daaratid waa ku darsanaysaa haddii aadan suuga rabina saliid yar ku darsanay gudihiya wax uga dhex jiraan saasa ku cunaysaa marka insha Allah tacaala waxaan u maleynayaa asxaabteeda inaad ka faa'iideen doontaan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe ka saar si aad ula socotid fiidiyowyada kaleeto aan soo gelin doono insha Allah asxaabtaadana la wadaag khayr iyo barakaan idinkaga tagay dhammaantiin meel kastoo ku sugan tihiin maasha Allah walaashiin Zamzam hay dhaafin waaye oo idin dhahayso kusoo biira channelka insha Allah tacaala kana faa'iideysta aan kala faa'iideysano barnaamijyada iyo channelkeena kalena waa barnaamijyada kana waa cuntooyinka kala duwan aan soo gelinaysa ula socotiin asxaabtaada la wadaag waa ku mahadsantahay daawashadaada insha Allah intaan dib dambe fiidiyoo wixiga ugu kulmi doono waxaa idin leeyahay meel kastoo ku sugan tihiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh